masjidkan qabyada ah oo ku yaala xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan deegaanka Buulabarey ayaa la sheegay in muddo uu qabyo yahay baahiyo weyn u qabaan dadka degan xaafadaasi. Culumaa u diinka Soomaaliyeed ayaa bulshada wax haysata ee Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan sadaqadan jaariyada ah. Masjidka oo iminka ku yaala boos yar ayaa la doonayaa in loo iibiyo boos kale oo ku dhagan si loo ballaariyo masjidka dadka ku cibaadeysanayna ugu filnaadaan. Waa kan ugu horeyn Sheekh Axmed Weli oo ka hadlaya goobta. walaalayaal waxaan maanta u joognaa masjid ku yaala xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan ninka la yiraahdo Buulabarey. masjidkan waxa waaye masjid muddo badan dayacan qiyaas ilaa 8 sano 9 sano ayaa masjidkan dhisma inta lagu bilaabay sida aad u jeedaan oo kaamirada ka arki kartaan ayuu istaagay muddo badanna masjidka wuu dayacnaa. waxaan u baahanay masjidkan xaafadda waxaad moodaa inay u qabto baahi aad u weyn. waxaan isdhahnay sidaan masjidka laguma fiirsan karo amaad walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan aad u bandhigtaan si masjidka loo caawiyo. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني سيد هذا العلماء إنه شيكتي مسجد كان أيام سكون نبت وباهوين قوسية سنة باهو كجوري سنة لو شيء حافظنا أيوة بانتهي sidaas ayaa mas'uul culumada loo khayr aydan hadda aanu tibina jirta dadka waxa maaragtay aan leenahay ninkii fursad ka faa'iideysan karo wax ku darsan kara inuu ku darsado kii ku darsan karana masaajidka u duceeyo. sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culumaa u diinka Soomaaliyeed ugu horeeyo Sheekh Abuukar Xasan Maalin asagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan sadaqadan jaariyada ah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. ولاليال سيدا ماركتا علمدي أنيق إيقوه الرئي وشيخنا الشيخ أبيكر وقوينا يا شيخ عمر يا معالي أحمد أي دمانتود أي دين شيغان هل كان أنو جوغنو وحافظ السوق حولها قارهان ماشى لقوا مقعبة بولاbarey waxaanu dhex taaganahay masjidkan la yiraahdo masjid Umar ibn al-Khattab oo ilaa 8 sano masaajidku sida aad arkaysaan qabyo ahaa oo sida u dayacnaa dadkii muslimiinta ahaa ee masjidkan dhisayay xilliga ay dhisayeen hamigoodu aad u sareeyay oo waxay doonayeen masaajidka inay dhameystiraan laakiin waxa la gaabatay gacantii iyo dhaqaalihii ayaa gaari waayay inay masjidka ay dhameystiraan. waxaan ogeysiinaynaa muslimiinta kuwa ina daawanaya iyo kuwa ina dhageysanaya dhammaantood in masaajidku uu u baahan yahay gacansiin taakulayn inaad u furtaan masjidka jeebabkiina akoonnadiina gacmihiina iyo quluubtiinaba aad u furtaan si masjidka loogu cibaadeysto oo duruus loogu aqriyo oo dalka iyo diinta iyo ummadaba masaajidku uu ugu khidmeeyo oo u adeego. waxaanu si naxariis leh aanu uga dalbanaynaa dadka muslimiinta dhammaan inay masaajidka soo saacidaan oo ay gacan siiyaan لأنه goobahan oo kale masjidkan iyo masaajidda la midka ah in la gacan siiyo waa fursad dahabi ah fursad dahabi oo qaaliya way qof ayaan leh nasiib leh ayaa fursadan oo kale ka faa'iideysto Ilaahay uu waafajiya. إن شاء الله تعالى sidaan rajaynayno masjidku uu dhismi doonaa waxaan arki doonaa isagoo lagu cibaadeynayo oo aad u nuur badan oo aad u qurux badan ayaa biidin Ilaahi ta'ala aan arki doonaa. laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye yaa ku guuleysan doona masaajidka taagidiisa iyo dhisidiisa adoonka khayrka badan oo Ilaahay uu nasiib uga dhigi doono ayaa isweydiin mudan. dadka ahlul khayrka ah aan ugu baaqaynaa masjidka inay ka faa'iideystaan faa'iidooyin fara badan ayaanu ka helaynaa masjidka inaanu caawino
faa'iidada ugu weyn oo ka helayno waa maxabbatullah ilaahana jeclaanaya markaan masaajidda aanu gacan siino oo aanu ihsaan samayno oo guryaha ilaahay aanu ihsaan u samayno ilaahay anugu jeclaanaya ilaahay hadduu ku jeclaadana dantii noloshan aad ka lahayd waad gaartay inaad noolaato ulajeedadii hadafkii aad ka lahayd waad ku guulaysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibbu almuxsiniin ihsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa muxsiniinta ah ee ihsaanka sameeya meel ihsaan loo sameeyana waxaa ugu khayr badan halkan aanu taagannahay ee masjid cumar ibn al-khadaab ee ku yaala deegaankan suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadan buula barrey ku yaala waxaanu ka helaynaa oo kale in ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkeenna uu barakaynayo caafimaadkeenna uu barakaynayo diinteenna uu barakaynayo inta aad bixisay in ka badan inaad ilaahay kuugu bedelayo subxaanahu wa tacaala ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin wixii aad bixisaan beddelkooda ilaaha idin siinaya ilaaha ballan qaaday yuusan shayddaanku kugu waswaasinin yuusan shayddaanku isbaaro kuu dhiganin inaad masjidka taakulayso waxyaalo yuusan kugu waswaasinin ah akoonkaa kaa nusqaamaya ama jeebkaa kaa nusqaamaya haddii masjidka aad taakulayso waxaasi waa isbaaro shayddaanku uu noloshaada u dhiganayo uu doonayo inaad uga dib dhacdo khayraadka iyo meelaha la isugu baaqayo in khayrka iyo barakada iyo nafaxaadka laga helo ilaahay isagoo arrinkan nooga digaya wuxuu leeyahay ashaytaanu yacidukum alfaqr waya'murukum bilfaxshaa shayddaanku wuxuu idinkugu hanjabayaa faqri markii wax bixiya laydin yidhaah faqriyuu kugu hanjabayaa wuxuu leeyahay iska jir faqiiraad noqonaysa akoonkaa kaa nusqaamaya jeebkaa kaa nusqaamaya waad baaba'aysaa hantidaadaa baaba'aysa hantidaadaa dayacmaysa balaayuu ku soo hordhigaya muuqaallo iyo sawirro aan wanaagsanayn ayuu shayddaanku ku soo hordhigaya waxaa la doonayaa si geesinimo ah inaad shayddaanka uga guulaysato waxaa la doonayaa si geesinimo ah inaad hantidaada ilaahay dartii aad u bixiso sadaqadu waxaa weeye qayb waxay ka mid tahay geesinimada qayb ka mid ah sadaqada iyo maaragtaahay gacanta la laabtana waa qayb fulaynimada ka mid ah leannahu qofku markuu hantidiisa ilaahay dartii u bixinayo wuxuu u bixinayaa kalsooni iyo geesinimo uu ku dhiiraday ilaahay inuu ku kalsoon yahay khasnadiisa waasica ah in ilaahay wuxuu uga bedelayo wax ka khayr badan ilaahay uu siinayo walidaalika nabigeena sala allahu wasallam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay in maalku uusan la nusqaamaynin sadaqa laga bixiyo nabiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi halaathun uqsimu calayhin xadiiskii imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayay saddex arrimood waan ku dhaaran uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasallam saddexdaa waxaa ka mid ahaa maa naqasa maalun min sadaqatin qad maal sadaqa inuusan la nusqaamin ilaahan ugu dhaaranayaa uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam dhaaran ku marahayaa uu yidhi maalku inuu ku siyaado uu ku barakoodo mooye in sadaqa maalku mar walbaba uusan la nusqaamaynin lidaalika sadaqada waxyaalaha lagu daaweeyo waxaa ka mid ah cudurrada dhakhaatiirtu ay ka daashay ilmo la'aanta maaragta shaqo la'aanta saboolnimada waxyaalahaasoo dhan waxaa lagu daaweeyaa masaajidda ilaahay oo la gacan siiyo masaajidda ilaahay oo la gacan siiyo dad badanaa la arkay oo markii idaacadaha aniga sheekh maxamed cabdulla cariif waad ogtiin in badan oo masaajidda muqdisho ka mid ah ayaa ilaahay nagu guuleeyay oo wax ka dhisnay dad badan oo warbixin dib noogu soo celiyo feedback nagu soo celiyo waxay leeyihiin sheekhow carruuraan helay markii masjidka intaasoo shamitaan ku darsaday qaarkood waxay leeyihiin shaqo la'aanaan ahaa shaqadii ay ilaahay uu furay waxyaalo badan oo cajaa'ib ah lagu arkay masaajidda dhismahooda dadka gacanta siinaya lidaalika marka walaalayaal fursaddan dahabiga ah aanu ka faa'iidaysano nabigeena sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay daawuu mardaakum bisadaqa dadka idinka xanuunsanaya sadaqada ku daaweeya lidaalika sadaqadu waa daawo waa caafimaad waa hantidoo ay kobcinayso waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala baaqan in si wanaagsan oo naxariisu ku jirto looga soo jawaabi doono masjidkuna uu noqon doono masjid qurux badan oo lagu cibaadaysto ilaahayna sidaa ha nooga dhigo cabdiraxmaan kambaala kalshan t v muqdisho